Faragelinta ciidan ee muddooyinkii ugu dambeeyay dowladda federaalk Soomaaliya ay ku haysay deegaanada dowlad goboleedka Puntland ayaa maalinba maalinta ka dambeysa waxay noqonaysaa mid cirka isku sii shareerto waxaana soo baxaya warar sheegaya in tirada ciidamada dowladda federaalk Soomaaliya ay ka diiwaan gelisay deegaanada dowlad goboleedka Puntland ay ka sara mareen qiyaas kasta oo markaasi la filayay isla markaana ay ku sii dhow yihiin kumanaan askari oo dowladda federaalk Soomaaliya si toos ah u hoostagay isla markaana ku sugan deegaanada dowlad goboleedka Puntland waxaan kula wadaagi doonaa deegaanada iyo degmooyinkii ugu dambeeyay ee dowladda federaalk Soomaaliya ay ka diiwaan gelisay ciidamada sidoo kale wadahadaladii iyo dhexdhexaadintii laga dhahwaday Siciid Cabdullaahi Dani iyo Generaal Jimcaale oo markaasi iyaguna gebi ahaanba fashil ku soo dhamaaday laguna kala tagay waxaan kula wadaagi doonaa sababta ka dambeysa fashilka wadahadaladii u dhaxeeyay Generaal Jimcaale iyo sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Dani soo dhawaada muuqaalka like saar aragtidaada qaybta faallada ee commentiga ku dhibo suuragal ma tahay ciidanka dowladda federaalk Soomaaliya ay ka diiwaan gelinayso deegaanada dowlad goboleedka Puntland inay ku afgembiso madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani oo xukunka kaga tuurto si la mid ah sidii madaxweynihii dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigreen oo waqtigan isagu markaasi dibad joog ah hagaaga deegaanada dowlad goboleedka Puntland muddooyinkii ugu dambeeyay dowladda federaalk Soomaaliya waxay ka waday faragelin aad u xooggan oo dhinaca ciidanka iyada oo deegaano iyo degmooyin badan ka diiwaan gelisay kana qoratay ciidamo aad u fara badan waayadii ugu dambeeyay dowladda federaalk Soomaaliya waxay xoogga saaraysay ciidamada hubeysan ee ciidan beeleedka ah iyo kuwa ka goosanaya maamulka Siciid Cabdullaahi Dani inay ka dhigto ciidan qaran isla markaana ay diiwaan geliso mishaarna ay u bilowdo isla markaana ay u magacawdo saraakiil iyada si toos ah u hoostaga awaamirteedana fuliya dowladda federaalk waxay ka soo bilowday ciidamada PSF iyo sidoo kale ciidanka danab kuwaas oo ahaa guutooyinkii ugu horreeyay ee dowladda federaalk Soomaaliya si rasmi ah oo daahfuran ay uga diiwaan geliso deegaanada dowlad goboleedka Puntland ulana wareegto mishaarna ay markaasi u bilowdo muddo ay ciidankaasi mishaar qaadanayeen kadib waxaa maalmihii ugu dambeeyay ee u dhaqaaqday dowladda inay xoojiso saameynteeda dhinaca ciidanka ee deegaanada dowlad goboleedka Puntland waxaana ay bilowday diiwaan gelinta iyo sidoo kale la wareegista ciidan beeleedka ku sugan deegaanada dowlad goboleedka Puntland iyo sidoo kale inay markaasi qorato ciidamo cusub wararkii ugu dambeeyay guud ahaan diiwaan gelinta dowladda federaalk Soomaaliya ee dhinaca ciidanka ee deegaanada Puntland ay ka sameynayso wadahadaladii u socday Siciid Cabdullaahi Dani iyo Generaal Jimcaale Takar waxaan ka wareystay wariye Cabdijamaal oo si dhow ula socday dhaqdhaqaaqa ciidan ee dowladda federaalk Soomaaliya ay ka wado deegaanada Puntland iyo wadahadaladii u socday Generaal Jimcaale iyo madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani soo dhawow Cabdijamaal waxaad nooga warbixisaa wararkii ugu dambeeyay iyo sidoo kale xaaladihii ugu dambeeyay deegaanada Puntland diiwaan gelintii dowladda federaalk Soomaaliya ee dhinaca ciidanka ee deegaanadaasi ay ka waday halka ay marayaan iyo sidoo kale deegaanada ilaa hadda dowladda federaalk Soomaaliya ciidanka ugu badan ay ka diiwaan gelisay si la mid ah wadahadaladii u socday Generaal Jimcaale iyo sidoo kale madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani halkay marayaan maxaa ka soo kordhay xaaladahaasi wadahadallo ay odayaal dhaqameed iyo dad indheer garada iyo siyaasiyiin reer Puntland ay wadeen waxaana wadahadalladaasi ujeedkoodu ahaa in xal waara laga gaaro xaaladda cakiran ee xilligan weli ka taagan deegaanada maamulka Puntland kadib markii taliye Jimcaale loo magacaabay qaybta 54aad waxaa dhacay qodobo waaweyn oo deegaanka saameyn ku yeeshay waa midda koobaad ee ciidamadii Puntland ayaa isaga soo baxay intooda badan furimaha iyagoo weliba la sheegayo inay laba ujeedo ciidanku uga soo baxayaan furimaha dagaalka dhanka kale waxaa sare u kacay khilaafka sii xoogeysanaya ee u dhaxeeya saraakiisha reer Puntland iyo sidoo kale hoggaanka sare ee maamulka Puntland oo guud ahaan u muuqda inay saameyn dhinacyo kala duwan ay yeesheen